afgarasho waagii dhacay oo maxaa la yidhahdaa yaa keena soo celinaya waxay ahayd kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan maanta ku eegayna xaaladaha kasoo cusboonaaday deegaanada galmudug oo ay isku horor fadhiyaan ciidamo taabacsan ahlu sunna wal jamaaca iyo weliba maamulka galmudug iyo ciidamo garabka dhanka dowladda federaalka soomaaliya waxaa istuudiyahiina maanta laga soo booqday madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamuladii gobolada dhexe professor cabdullaahi xirsi diirshe daacad. professor waan kaaga mahad celinaynaa waqtigaada qaaliga ah ee kusoo dhawo istuudiyaha dhexe ee telefishinka tusmo. kusoo dhawaa mahadsantihiin tusmo aad baa u mahadsantihiin daawadayaal sida aan idinkaaga dhacnaba maanta barnaamijkeena waa barnaamij gaar ah oon ku eegayna xaaladaha kasoo cusboonaaday deegaanadaasi galmudug. waxaan jecelnahay in professorka aan su-aalo dhowr ah ka weydiina xaaladahaasi sidoo kale khibradiisa waayo-aragnimo iyo weliba talooyinka uu haya labada dhinac uu nala wadaago. marka professor kusoo dhawow barnaamijkeena mar labaad 29 February 2020 maamulkii ahlu sunna wal jamaaca waxa ay amnigii iyo mas-uuliyaddii gobolada dhexe ay ku wareejiyeen dowlad goboleedka galmudug. marka maxaa soo celiyay in waqtigani mar labaad khilaaf uu soo cusboonaado oo waa sidaan loo soconno bohol waxaa ka dhacay dagaal shalay gurceel ayay maamulka ahlu sunna ciidamo taabacsan soo galeen oo qabsadeen. marka maxaa xaaladahaas aad soo cusboonaysay ayaa las dhihi karaa? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد aad baad u mahadsantihiin. arrinkaa isaga ahay waxa soo celcelinayahay wuxuu yahay wax la wada leeyahay oo dadka ka dhexeeya hadday dhacdo in lagu gabood falo ama qof gooni isku siiyo waxaasi waa soo noqonaya. macnaha ahlu sunna deegaankay ka mid yihiin, dadka gobolada dhexe ay ka mid yihiin. sidaa daraaddeed saluugiddii ay saluugeen wixii la waday ayaa keentay ama is afgarasho waagii dhacay oo maxaa la yidhahdaa yaa keena soo celinaya waxay ahayd in arrimahaas iyaga ahi si degan looga baaraan dego. qof walba meeshuu ku habboon yahay, talada waqtigay habboon tahay, xaaladda ay ku habboon tahay in la wadaagay ahayd. laakiin waxaa soo celiyey baan anigu aaminsanahay taladii oo iyada qudhadeedii maroorsi noqotay, in la maroorsaday taladii oo ayaga aan sidii la rabay looga taxgelin. waayo waqtigii la rabay in la siiyana lama siin, si degdeg badan baa iyo arrintaas iyada ahay iyaa lala falgalay. taasaa soo celcelisay baan isleeyahay miisaanka ka lumay in la wada hadlo oo lays ogaado oo lays barto oo xaaladda si saaniya loo dhex guda galo ayay ahayd. waqtigiina lama siinin, fekerkiina lama siinin, dadkii wax ku lahaana lama siinin. sidaa daraaddeed baan isleeyahay waxa soo celcelinayahay waa arrimaha noocaas. waxaa tiray waqti lama siinin, waxaa kala jeedaa in waqtigaasi qolada aan waqtigaasi siinin maamulka dowlad goboleedka galmudug ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Qorqor. sida dib iyo in yar haddaan u noqono galmudug waxa la mideeyey oo la iskugu keenay galmudugtii jirtay oo hore iyo ximan iyo xeeb iyo ahlu sunna wal jamaaca ayay ahaayeen. triangalkaasaa lagu shaqeeyey waqtigii dowladdii muxuu ahayd 12 xilligaas isagaa yaa la shaqeeyey oo la isku soo ururinayay iyadoo aan weli arrintaas iyadaa laga baaraan degin oo si saaniya waqti aan loo siinin ayaa haddana midaani dhalatay. sidii oo kale waqti lama siin baan qabaa maxaa la yidhahdaa isbeddelkii la rabay in meesha laga dhaliyo oo ahayd in la ogaado ahlu sunna waa dad degaanaha, dad shisheeyaho dibadda ka yimid maaha. dadka joogaa meesha waa degaankii. fekerkooda iyo taladooda iyo siday wax u doonayaan waxay ahayd in lasoo shaacbixiyo, banaanka lasoo dhigo, la wada hadlo, si rasmiya loo saleeyo bay ahayd. laakiin waxaad moodaa aroor aan ceel lahayn inuu ka dhacay meesha. gaabis jiray ha gaabiskaasi dabcan waxaad kala jeedaa inuu sii daadihiyey oo barnaamijkaasi uu sii gudagalo oo labada dhinac ay miiska wada hadallada wada yimaadaan oo barnaamijka intaan uu kasii weynaaday oo maanta aysan gaarin isku dhacyo iyo ciidan iyo inay kusoo laabaneen ina mas-uuliyaddaas ay lahayd dowlad goboleedka galmudug. aad iyo aad marka maadaama aad is leedahay mas-uuliyaddaasi way gaabisay maxay ahayd haddana shacabkii magaalada gurceel shalay wejiyadooda ka arkeyna soo dhaweynta u muujiyeen maxay ahayd ahlu sunna wal jamaaca. maxaad aragti ahaan qabtaa in ay shacabka dhammaan ka wada midaysan yihiin? horta waxaa la doonayaa in dantooda laga shaqeeyo shacabka weeyaan. shacabkuna dantooda hadday waayaan
ay ka waayaan ciddii ka waayaan mooyaan ciddii kale oo ay ka heli karaan bay raadsanayaan oo danta shacbigu iyagu waa sidaas weeye dadka loo shaqaynayo weeye waa dadka xilka loo hayo weeye waa dadka waajibaadka muxuu ahaayete kitaabka qur-aanka gacanta loo saaray weeye in danahooda la hergeliyo hadday waayeen ciddii ay isleeyihiin waad ka helaysaan inay soo dhaweeyaan inay muxuu ahaayete la shaqeeyaan way ku qasbanaanayaan waxaan isleeyahay markii horena khaladkii wada hadalkii iyo heshiintii iyo wax meel wada dhigashadii haddii la dedejiyey oo aan laga miro dhalin haddana wixii ay dib u soo noqdeen waxaa munaasab ahayd in ayadana xal haddana la baadi goobo oo aan lagu ordin degdegii shala oo kale aan lagu ordin oo hamigii iyo hididiiladii iyo wixii niyadda dadka aan laga jebin dad badan waxay aaminsan yihiin oo isleeyihiin maamulka amasana culummada ahlusunna waljamaaca waxaa horaantii bishaan lagu soo dhaweeyey magaalada hursho deegaanka hursha lagu soo dhaweeyey meeshaas waxay ku samaysteen siyaaro oo maxay culimmadoodii ayaga maxay role model ku ahaa ay kusoo booqdeen oo meeshaas ducaa iyo maxay ugu bixiyeen imraadkii ay macnaha u bixin jireen dabadeed waxay bilaabeen inay isfidiyaan oo ciidamo ay aruursadaan oo maxay ahayde ilaa bohol ilaa guriceel waxyaalaha hadda ka dhacay deegaanada galmudug dhammaan aan macnaha wada aragno oo laga soo tabanay marka dadka waxay leeyihiin ahlu sunna kolka horeba ma ku maqneen waan iyo kii kalete waa soo tabaaweyshinaysa marka maxaa akleeda taas waxaan isleeyahay oo aaminsanahay lawana aaminsan yahay dadka dhan wada aaminsan yihiin qofkii gurigiisa qori looga saaray ee aan dhiman ee aan baabi'in inuu kusoo noqonayo gurigiisii oo wixii wax looga qaaday inuu soo qaadanayo horta wax qasaba qaacido weeye maa ukhida biquwa falaa yustaraddu ilaa biquwa wixii xoog lagu qaato xoog baa lagu soo celiyaa baa la yidhahdaa waxaa kaloo soo haray ma ahayn in xoog maanta ahlu sunna wax la yidhaahdo ay soo shaac bixiso waktigaana ma ahayne waxay ahayd inay soo shaac bixiso wax la yidhahdo wada hadal iyo waan iyo tilmaan iyo talooyin dhulka la dhigo inay ku shaqeeyaan baa la rabay waayo waxaa la rabaa waa wax aasaasa oo raasumaala wax laga shaqaynaya wax muxuu ahaaye wakti yar inta laga shaqeeyo dhammaanaya maaha waxa kale midda kalena waxay ahayd markay yimaadeen oo ay soo noqdeen waxay ahayd in la iclaamiyo waan oo laga shaqeeyay ahayd taa laftigooduna mas-uuliyadda qofka ugu sarreeya maanta galmudug uu ka seexday baan qabaa arrinkaa isagaa iskumana mashquulina hawlo kale ku mashquula haatan khilaafkani markuu hadda dhaciyo oo maxina dagaaladan iyo waxyaalahan ay soo dhintay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed qoorqoor wuxuu ku sugnaa magaalada muqdisho oo uu joogay xaalada xalin uu ka dhex waday madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha iyo arrimo kaleeto oo maxay siyaasadiisii iyo weliba dowlad goboleedka galmudug horseed u ah marka in madaxweynihii oo maqan ahlu sunna bilowda maxay ahayd amase ay sameeyaan isku horimaadyo iyo colaad cusub soo cusboonaato soo mas-uuliyad darro ma la isdhihi karaa waxaan is leenahay had iyo jeer ale waxaa wanaagsan in wax cad la sheego oo aan mugdi ku jirin oo sarbeeb aan lahayn waxa weeyaan marka siyaasadda hadal maldahan laga dhigo wax lagu shaqayn karaya maaha waxaan leeyahay nimankaasi waa yimaadeen waana loo ogolaaday inay yimaadaan hadday yimaadeenna guryahoodii baa ku yaalla meesha waxay ahayd guryahoodii bay tageen meel bay deganaayeen meesha ay deganaayeen in loogu tago ciidan inta ku weeraro ayagii lagu weeraro ayaa khalad ahayd marka horeba ayaa khalad ahayd waxay ahayd iyadoo meeshooda jooga in lala bilaabo wada hadal iyo waan markii la dareemay in meeshaasi ciifo iyo dhiilo ay ka jirto waxay ahayd in wada hadal la bilaabo maanu araga markiiba waxaan aragnay markiiba weerar lagu qaaday meesha ay joogeen sidaa daraaddeed waxaan is leeyahay gacantii marka hore wax bilowday ama daandaansiga bilowday qoryaha waa la wada haystaa dadka deegaanka ahi qof walba gurigiisa qori baa u yaalla qoryuhu qof walba qori waa haystaa deegaankana dadku waa lahay qorina lama zuulin deegaamada galmudug iyo deegaamada soomaaliya oo dhan ba lagama zuulin qof walba qorigiisa waa wataa sidaa daraaddeed waxay ahayd in hadal lala bilaabo oo xujo lagu oogo hadday wada hadalka diidaan oo dadweynaha iyo shacbiga iyo ummadda loo talinayo in loo soo bandhigay ahayd wada hadal iyo waan maadaama shalay maxaa la yidhahdayey weerar iyo colaad looga bixiyey deegaamadoodii iyo waxay ahayd baan qabaa maanta in lala hadlo oo hadal la furay ahayd meesha dagaalka lagu qaaday marka waxaan is leeyahay ciddii bilowday ayaa maanta eedeeda yeelanaysa dagaalka isaga ahlu sunna wal jamaa haatan waxay sheegayaan in ayaga naftirkooda ay aaminsan yihiin oo aysan ka soo horjeedin jiritaanka dowlad goboleedka galmudug balse ay tabaashooyin waxaasay wataan hadda maxaa la gudboon as leedahay ahlu sunna ayaga ahlu sunna deegaankaas dadka ka shaqaynayay oo joogay waxay soo mareen marxalado iyo heerar kala duwan bay soo mareen oo dowladdan dowladihii ka horreeyey ayay la soo mareen
waana marayaan mar walbana waa maraan galmudugna waa ka mid yihiin haddeer laftigeega oo maamulka oo ku jira waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan wada hadal lagama maarmaya mar walba in la wada hadlo oo talada dhulka la dhigo oo qof garabka iska saaran oo qof uusan dhihinin anigaa saxan horta anagaa saxan luqadda la yihahdo wax shaqaynaya maaha waxaa la weeye in waxa naga wada maqan la wada baadi goobaa saxa waxaa jira hadal qurux badan oo imaamu shaafici uu yidhi naxariistii janna allaha siiye wuxuu yidhi maxaa la yihahdaa qawlii sawaab yaxtamilu khata haddaan idhaahdo hadalkaani waa toosan yahay waxaa laga yaabaa inuu yahay khata wa qawlu gayri khata qofka aniga iga soo horjeeda haddaan idhahdo waa gafayna waxay ka dhigmi kartaa inuu sawaabka isaga ku jiro qof isi siin karaa ra'yiga isaga ma jiro sawaabka la yihahdaa toosnaanta isi siin karaa ma jiro sidaa daraaddeed qofku inuu wixii saxa ku qanco oo looga dhaadhiciyo si saxa oo tafatiran oo banaanka yaalla oo mugdi ku jirin oo idaacado iyo warar been abuura aan ku salaysnayn iyo warar cidlaa yaa la rabaa dadka in warka dadka deegaankay wada leeyihiin waa la wada nool yahay waa la wada noolaan doonaa qof gooni wax u yeelan karaana ma jiro qof ra'yigiisa cid dusha ka saari karaana ma jiro xal baa marka loo baahanayaa xalkuna meesha uu ku jiro in laga doono wey xalka markaas xalkaan rabnaa xalka ugu sahlan maxay hadda maamul goboleedka ahlu sunna wal jamaa hadda maanta u banaan oo as leedahay miiska wada hadalka ay la imaan karaan ama noocaasi waxay ka maqan karaan ama sidaas xalka maanta waxaan ku weydiinay waxay tahay fursadda maanta ay haystaan ahlu sunna waxaan is leeyahay fursadda ahlu sunna fursadeeda hadda way haysataa fursad la-aan maaha degaankii iyadu shalay ay joogtay bay maanta joogtaa maamulka galmudugna meeshii galmudug la oran jiray iyo maamulkii caasimadii uu joogaa dhulkii marka waa la wada joogaa mar haddii dhulka la joogo waxaa la yahay maxaabiis baa la yahay maxaabiisna inay macaamil wanaagsan dhexdeeda samaysatay ku khasban tahay mar hadday weydo xorriyaddii banaanka ay ku joogtay wax xorriyad haysta ay ma jiraan hadday galmudug ahaan lahayd maamulkeeda hadda jira iyo hadday ahlu sunna ahaan lahayd qof xorriyad haysta ma jiro sidaa daraaddeed xal baa loo baahan yahay maxaa kala jeedaa qof xorriyad haysta ma jiro macnaheedu dhul deegaanka waa la wada leeyahay dadkuna waa dadki noloshuna waa noloshi geedaha dhulka ku yaalla miyaa la zuulin karayaa oo la dabar goyn karaa waa maya dadkana waa sidaas oo kale marka waxaan qabaa xalku wuxuu ku jiraa kow wada hadal iyo wada tashi tusaale iyo tusmo in wax la tusaaleeyo ama wax la tilmaamo yuu ku dhex jiraa wuxuu ku dhex jiraa in talada dhulka la dhigo garbaha lagu wato dhulka in la dhigo dad baa iska raran oo isla adiga ayaa kugu jirtaa dantii iyo maslaxadii kugu jirtaa qofkaas inuusan jirin inuu isku sheegaa la rabaa oo dhulka dhiga baasha waxa weeyaan cid keligeed baahani ma jirto waa la isku wada baahan yahay ninka dhakhtarka ahi haddaanu qof buka jirin muxuu ka furanayaa meesha wuxuu ka furanayaa ma jirto sidaa daraaddeed dhakhtarku bukaanka u baahan yahay bukaankuna dhakhtar buu u baahan yahay sidaasoo kale nidaamka iyo muxuu ahaay iyo hawsha meesha looga baahan yahay waa caynkaasoo kale waxaa kaloo loo baahan yahay waxa la yidhaahdo dareenka iyo aragtida maqalka urinta dhegaysiga dhedheminta iyo taabashada kulli waxa dhani anaa iskale qof hadduu yidhahdo laga yeeli mayo qofkii caynkaas ku fekerana wuxuu luminayaa fursadda ah in waxa cidda ka soo horjeeda ay saxan tahay ayuu iska luminayaa cidda kaa soo horjeeda hadday saxnaatana waad khaldamaysaa khaladkaana mirihiisa qaraar badan baad cunaysaa wey haddaad adigu saxan tahana waxaad isku dadaalaysaa inaad saxda fahamsiiso cidda kaa soo horjeeda xoog waxaa la yidhahdaa marna ma shaqeeyaan caqli baa shaqeeya xigmad baa shaqaysa talaa shaqaysa waxaa kaloo taladu ku jirtaa si siman in loo wada baadi goobo wax horseedi kara in la helo deganaansho iyo xasilooni iyo nidaam iyo kala dambeyn in la baadi goobo ayaa muhiima taana macnaheedu maaha in la dedejiyo oo 7 bilood ma garanaysaa lagu umul raaciyo maaha marka waxa weeyaan in arrinka isaga ahi uu horseedo qofkii yiraahda aniga tayada lagu soconaya hadday ahaan lahayd maamulka imika galmudug jooga iyo maamulka maxaa la yiraahdaa ahlu sunna hadday ahaan lahayd labadoodaba qofkii yiraahda aniga ra'yigayga lagu meel mari karaa laguna badbaadi karaya lagu samata bixin karaa deegaanka waxba kama jiraan qofkaasuna wuxuu noqonayaa tilmaantan soo socota ninka isaga ahaa ee fircoon la oran jiray oo quraanka ilaahay ka sheekay wuxuu yiri tolkiisi markii nin wanaagsan oo sharaf badan baa waaniyay oo yiri warnay Muuse hadduu khaldan yahay khaladkiisa halaajinaya hadduu toosan yahay anaga halaagsamayna ee guryahan iyo barwaaqadan ahna dhaafsiinina marka wuxuu yiri fircoon ma uriikum illa ma ara waxaan arkaa ayaa idin ah adinka waxaan anigu arko ayaa idin wama ahdiikum ila sabiil ar-rashaad waxaan ku hadeynaya
oo in ku wada wadadii toosnayd marka qofkaasna qof iscajabiyo halaag iyo dabargooy ka shaqaynayo noqonaya marka dagaal iyo colaadii xasilooni darre iyo anaa iri wax ay meel ay ka shaqayn karaysaa ma jirto arrinkaa isagaa dhulka in la dhigo tala wadaagna la noqdo ayaa maslaxadu ku jirta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya qoraal ayuu kasoo saaray xalay oo saxaafadeed ayuu kasoo saaray khilaafkan hadda taagan waxa uu xoojiyey ama u booriyey in maamulka galmudug uu mas-uuliyadda koowaad labaad saddexaad ay ka saaran tahay xaqiijinta amniga iyo kala dambeynta dowlad goboleedka galmudug waxa uu saxaafadiiskiisa ku jiray waxa uu ku tilmaamay maxay ahayd kuwa aan minaha abuuraya xasaanada ama sana siyaasadda khalaasa xilligan abuuray marka haddii aad akristay iyo haddii kaleba siduu qulu muuqdaa qoraalka ra-iisul wasaaraha taladaada ku aadan maxay ahayd in maamul goboleedka galmudug naftarkiisa uu door ka qaato in miiska wadahadalka hadeertan asaga uu bilowbo ama miiska wadahadalka asaga uu sii diyaariyo halkii lagu wada hadli lahaa maadaama aad soo jeediso wax badan in la wada hadlo oo hal dhinac uusan asaga bursi sameynin oo laismaqlo oo la wada fariisto la tashto marka yay tahay in taladaasi ay sii daadihiiso waxaan isleeyahay qoraalkaas waan arkay laakiin qoraalkaasi ma lahayn saxiixna ma lahayn stamna ma lahayn warqad intisaatana ma lahayn qoraal caadi oo iska qoran buu ahaa marka ma garanayo sida loogu tiirin karo ra-iisul wasaaruhu inuu xafiiskiisa anigu si official ah usoo dhigay afhayeenka xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed macali anigu kulleyba markuu soo galay xayndaabkayga iyo xeradayda markuu soo galay qoraalkaasi eena arkay dusha sare waxa la alifi karo qofkii raba alifi karo waa naqaana waxyaalaha la been abuuro iyo waxyaalaha saxda waxa originka iyo waxa koobigana waan kala garanaynaa marka arrinkaasi aniga qoraalkaas markuu isoo gaaray ilaa iyo hadeer uma aaminsanin qoraal ka soo baxay xafiis ra-iisul wasaare uu leeyahay uma aaminsanin wax kulleyba dad soo qoreen oo caadi baan u aaminsanahay haddii laga soo qaado inuu yidhi mas-uuliyadda waxaa iskale maamulka galmudug baa iskale ahlu sunna waxay ka mid tahay galmudug cid ka saari kartaa ma jirto dad ahaan iyo degaan ahaan iyo dan ahaan intaba cid ka saari kartaa ma jirto marka waxa weeyaan reer galbeed baa qof baa saboor ka qaatay oo 10 sano joogo dhulkooda u doodaya oo xuquuqdiisa raadiya annagu meeshaan ku dhalnay sidii geeduhu uga soo baxeen baa uga soo baxnay dadkaas ka soo baxayna cid kama yeelan karto talada in la wada leeyahay aaminsanahay inayna cid gooni u saarnayn baan aaminsanahay cidda maanta galmudug mas-uuliyaddeeda haysana ma ahan baan qabaa qof maanta kartida dadkaas la iskugu keeni karo keligii ka shaqayn kara inuu yahay ma aaminsanin in laga wada shaqeeyo sana horeba u sheegay labada daraf ka wada shaqeeyaan dad kalena ka dhex shaqeeyaan laba isdishay isma daweysa Soomaalidu tira laba isdishay isma daweysa caqli baa la rabaa xigmad baa la rabaa waxa laga hadlayaa waxa weeye dhexdhexaadin ayaga u baahan inuu isagu inta u taliyo ayaga awaamir ku soo rogo oo amarkiisa ay qaataan oo xoog u isticmaalo oo nidaam iyo maamul iyo xeer iyo awaamir u isticmaalo waxa ka horeeya markuu ugu horeysa ma la heshiiyo horta yaa guri usradii iyo qoyskii deganaa ay ku kala tageen aabiyo hooyo ubadka maxaa u yaala waxaan leeyahay labadooduba marka hore in la isku keenay u baahan yihiin in la wada hadal siiyay u baahan yihiin in laga marqaati kaco cidda khaldan baa ay u baahan tahay shaahid baa la rabaa marka qof goob jooga oo dhagaha wax ka maqla oo indhaha wax ka arka oo caqligiisu wax rogo oo arrintaas iyada ah dad galaa loo baahan yahay oo arrintaas labadooda in la xaliyo mooyaane ma xallin kara ninka maanta horjoogaha ka ah ama nimanka horjooga ka ah ma xallin kara awa baarlamaankii galmudug muu hadlo wax dhawaaqaya lama arko wixii baarlamaan galmudug looran jiray qof hadlaya lama arko waxaana la rabaa dadka metelaya baarlamaanku inuu noqdo ya dadka geelooda iyo xeelo dhulkooda iyo iyagaba waxa metelaya waa baarlamaankii hal qof oo baarlamaanka galmudug hadlaya lama arko maxaa ku dhacay baarlamaanka oo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda galmudug uga hadlaya macal waxaan leenahay raggii galmudug ku jiray oo garanaysaayay madelayay dadka kitaabka gacanta u saartay inay dadka iyo deegaanka iyo u shaqaynayaan kitaabada gacanta u saartay dhammaantood waxaan isleeyahay haddayna ayagu xorriyad ku seexan waa la seexiyey dad la seexiyey wey mar haddaan meeshii nidaamka ka socon oo maamul ka socon oo dadkaana dadka difaaci lahaa waa dadka baarlamaanka ah baarlamaanka ilaa iyo haddeer way ka hadli la'yihiin marka haddii ra-iisul wasaare dowladdii dhexe wey dowladdu waa federaal waddanku waa federaal weeyaan maamul baa la kala leeyahay waxna waa la wada leeyahay waxa khaaskaana waxa caamka lama dhexgeliyo dowladda dhexe dowladdaas dadkaas muxuu ahaay guud bay iyay shaqadeedu tahay laakiin dadkii shaqada gaarka lahaa oo baarlamaanka galmudug ah ilaa iyo hadda waxay yihiin lama arko way aaminsan yihiin ma saxayaan haddii madaxdoodii xukuumaddii ay khaldan tahay ma saxayaan oo wasiiradii iyo madaxweynihii iyo ku-xigeen iyo hadday khaldan yihiin dadkay saxi lahaa wey ma garanaysaa dadkoodu hadday khaldan yihiin dadka wax u sheegi lahaa wey
haddii dadkooda laga khaldan yahay dadki wax u raadin lahaa wey marka waxaan qabaa meeshaasi gelgelin bay noqotaye in tala midaysan loo helay u baahan tahay in badan baana meeshaasi dhibaato badani ku socotay haddana way ku socotaa sidaan dareemayo sida looga bixi karana waxay tahay horta dhulka hala dhigo mas-uuliyadda lagu raran yahay oo cid loo hayaa aysan jirin dhulka hala dhigo galmudug fursad intee leeg ay u haystaa in khilaafkan hadda taagan ee ahlu sunna kala dhexeeya ee waxaa las iyadoon dhiig kale uu ku daadanay waxaan qabnaa inay gogol fadhiso dadkan horta soomaalida gebigeygaba dib u heshiisiin ba u baahan yahay soomaaliya oo idilba in gogol iskugu keeno geed hoose la geeyo u baahan yahay waxa dadku bugtada beenta ah la isku qabaya waxa la iskaga tabinaya waxaan ahayn waxaa la yidhaha dhurwaa iyo caruur waa loo kala wartabiyaa maahan isma yaqaanin weligoodna isma arag oo dhurwaagu ku cunin baa ilmaha la yidhaha dhurwaana dhulkiisu jira kolka waxa weeyaan ina maxaa la yidhaha dhulka inta la dhigo taladaas iyada ahay la fariisto gogol la dhigo dib u heshiisiinna dadkan laga dhex bilaabo waxaana kuu sheegayaa maxaa la yidhahdaayey mudane deegaanka dagaal baa ka socda kale aan dagaalkaan ahayn dagaalo kalaa ka socdaba oo degaan ayaa ka socda ilaa intii galmudug hadda ay soo jirto labada sanaha dagaal baa ka socda dagaalka wax natijaahay kama soo bixin waa dad degaana oo ceel iyo carshin iyo beer iyo guri iyo waxaas magaraysa daaq ku wada hadlaya wey xal laga qabtana lama arko marka waxaan qabnaa horta waxaan qabaa wixii talo gacanta ugu jirto waxaa la rabaa in meeshaas marka ugu horeysa maabul baa yaalla galmudug la yidhahdo inta la yidhaahdo inaan la isku dayn oo xarigga loo sii dayn ee ay noqoto dowladda dhexe ama ra-iisul wasaarahu maanta hadduu hadalkaas soo qoray waxaan leenahay hadalkaas hadduu leeyahay hadalkaasa ka noqdo waa maxay gogol degdega ha ku dhawaaqo dadka ha la isku keeno dadkaasi ha la wada hadal siiyo dadka markhaati ha loo yeelo waa maxay laba qof marka wax isku qabato maxaa la yidhahdaa markhaati ma haysataa baa la yidhaha qofka shaatigayga hadduu igu qabsado waa siibaya horta halkaasaan dhigaya markhaati keensa aniga laleeyahay anaa la soo malihi kan kalena wuxuu yihi anaa keenso kan kalena dhaar buu maraya ana waxa markhaati baan keensanaya dalkaani markhaati buu u baahan yahay wax markhaati cid qira dadkeenu ceebaha soomaali ahaan aan leenaha waxaa ka mid ah markhaati lama qiro jacayl qof loo qabo nacayb qof loo qabo maxaa la yihahdaa dhuuni iyo xoolo raadin awgeed ilaahay wuxuu leeyay wa aqiimu shahaadata lilahi war markhaatiga aniga dartay u qira labadoodu ma wada saxnaanayaan madaxda galmudug joogta iyo madaxda ahlu sunna ee dhulkaa deegaankaa joogta ma wada saxnaan karaan qola qaldan gartuna laba qof kama qosilso waa in markhaati loo sameeyaa markhaatigaasi waa maxay waa dad wax arka wax maqla wax dareema wax dhihi kara maskax xoraysan leh fikirkooda uu leeyahay oo waxa sheegay qofkaasaa khaldan yidhaahda maxaa heeg loo aadayaa heeg marka maxaa laga doonayaa maxkamadda caalamiga ah oo maxkamadda laleeyahay caalamiga ee heeg maxaa loo aadayaa badda soomaaliya kenya maxaa loo geeyey soomaaliya dad ma haysato culimo ma joogto caaqilin ma joogo waxgarad ma joogo war wixii idinka badiya meel geeyaa la yidhi meeshaasaa la geeyey waa ka badiyey laba dowladood baa wixii isku haysa soomaaliya iskuma haysata imaka labadaa dowladood isku haysta halkaa hala geeyaa la yidhi halkaa hala geeyo waxay ka soo baxana waan sugaynaa baa la waa la sugayaa waa la sugayaa macnaheeda in gartii laga gar celiyaa la rabaa waxaan leenahay marka soomaaliya heeg oo kale oo hal abay rabtaaye maashaan dhulka inta la dhigo dad gar celiya ha la helo oo aan dhaqankii baa la lumiyey culimmadii baa la lumiyey waxaa la lumiyey siyaasigii ganacsadihii baa la lumiyey waxgaradkii baa la lumiyey amnigii iyo ciidankii baa la lumiyey qof walibaaba siduu isagu doonayo in wax ugu hirgalaan buu rabaa mana dhici karayso odayaasha dowlad goboleedka galmudug suldaamada iyo culimadaba fursad intee leeg ay naftirkooda ay door intee leeg ay ka qaadan karaan xalinta khilaafkan dowlad goboleedka galmudug iyo ahlu sunna soo kala dhexgalay dhibaatooyinka jira waxay yihiin wax gunta in laga soo talo u baahan wey dhaqankii waa la baabi'iyey waxa weeyaan anigoo imika cumrigaa jira oon isleeyahay dalku aduu kuu baahan yahay dalku ma baahnid baan isleeyahay markaan hadlayo sababta waxa waa soor iyo caano yar baan cabaa waan isku cuncunaa anigu ma cuno dhaylada iyo magaranaysaa muxuu ahayta digaaga iyo waxaa ma cuno waa iska joojiya waxa iska jooji baa layidhi laakiin ninka waxaas u dhadhamayaan isagaa yaqaana moogta kaabaa cunaya waxaan leeyahay dhaqankii waxaa loo sameeyey kaarar haddaan anigu oday nabadoona ahay oo cidda usoo joogi jiray 3 baa laga ag sameeyey kaarar baa la siiyey dowladdii hore oo magaranaysaa tan ka horreysay mid bay kaar siisa ama labay siisa tii kasii horreysana mid labay siisa midaan hadda labay siisa kale waana isla reerkii jufadii iyo oodii weeye bes dhacantii soo arki maysid kolka waaba la baabaasha dhaqan markaa runta kuu sheego dhaqan wuxuu noqday ID ayuu noqday bes ID qof jeebka ku wato
uu ku galgala meelaha doodaha iyo aroosyada iyo magaranaysaa meetingii kulmado ka jiraan iyo meelo lagu galgalo ayay noqdeen dadkii dadkooda wax u raadin jiray waxna ka raadin jiray waa loo dhameeyey baan qabaa. hadalkaaga adweyt waxaan ka qoray in ay jiraan culeysyo kaleeto oo marka laga reebo culeyskan hadda ahlu sunna iyo soo kala dhexgala dowlad goboleedka galmudug ay galmudug deegaanadeeda ka jiraan qabsi dhulka iyo deegaanada iyo daaqa iyo waxyaalahaas ku hareersan iyo weliba culeysyo kaleeto oo maxay ahayde jiro marka fursad ma siin kartaa marka in culeysyadaasi ay sii laba jibaarmaan maadaama labadan ay is haystaan. waxaa hadda is haystaa aniga in laga dhigo ma qabo ahlu sunna iyo maamulka madaxda ahlu sunna ee deegaankaas iyo madaxda galmudug baa is haysta in la yidhahdo anigu ma qabo aragti ahaan. waxaan qabaa degaan waxay is haystaa in degaan laga dhigo oo laga qaangaariyo waxaas laga qaangaaro waxaas waqti badan baa la sheegi jiray dadku waa degaan xigmaduna dadkay ku jirta 12 jir bay hadday doonto xigmadu ku jirta deegaanka dadka deegaanka ahi in gobol degdega ay qabtaan oo waxooda waxgaradka ahi noocay doonaan ba ha noqdeen miyi iyo magaalo iyo tuulo meesha doonaan ba ha joogeen gurmad noocaas inuu dhacan qabaa magaranaysaa oo fadhigaas uu dhaco oo ra'iisul wasaaruhu waxyaalaha imaka looga baahan yahay kamid tahay doorashadu ay tahay wax looga midin doorasho kama dhacaysa galmudug haddaan xasilooni iyo deganaan iyo amni iyo nidaam iyo kala dambeyn loo helin ka dhici maysa hadeer wixii ka dhacana xataa waa qabyo noqonaya wax qabyo tire u baahanaya. waxaan qabaa in ra'iisul wasaaruhu hadduu warkii hore soo saaray mid ka duwan inuu keeno waa maxay in gogol degdega la fidiyo cidda khaldana la yidhahdo waa khaldan tahay loo sheego wax ma ahan dadku inay wax isku sheegaan is haystaa waa in wax loo sheego weeye ninkii deegaankiisa xilkii loogu dhiibay ka shaqayn waayey ee sidaasi ay gaboodfal iyo khaladaad iyo xadgudubyo ay ku dhaceen in la yidhahdo weeye ka fariisa meesha waxaa la yidhahdaa ma ogtahay madaxda adduunyada dadkan gaalada iyo waxaan la jooga qofka hadduu khalad yar hadduu dhaco uu ka dhaco khalad yar haddii uu ka dhaco oo ogaado uu sacsidaa uu ka dhaqaaqa marka maxaa la yidhahdaa galmudug gaboodfalka qaybta ugu horeysa waxa weeye ninkii madaxa ahaa ee xibnaha kale aan ahayn hadduu gaboodfal sameeyo waa inuu iska dhaqaajiyaa fiicnay uusan dadka gool iyo gar iyo midna u socesha saas aniga la sax marka laga tago dagaalada qabaa'ilada iyo waxyaalaha kale ku dhaco oo taas ay kala simantahay dowlad goboleedyada kaleete ee dowladda federaalka Soomaaliya xubnaha ka ah gaboodfal kaleeto aan hadda anaga aan ku cadeyn karno ma jiro marka gaboodfalkaashigiisi waa mid noocee waxaan ujeedaa anigu mar haddii aan gar naqsanayo oo waxa hadlaya aniga yahay ee duulal isaaran aysan ahayn aniga laftigayga iyo waxa hadlaya waxaan qabaa galmudug madaxdeeda ayaa gaboodfalka samaysa waxa weeye laacna biyuhu soo cadaystaa waxay tahay markii inta la isku keenay madaxweyne haya galmudug waad ogtahay xaaf baa hayay intuu qaylinayay intuu hadlayay iyo hadba meel ka dhacaysa waa ogay sheekh maxamed shaakir oo asna la yiri ra'iisul wasaaraha hayay markii la isku keenay dabadeedna tanaasulkii dhashay lama aadin dadkaasi in la saleeyo lama aadin muuse aadin xilkii ninkan odaga ah lagu wareejiyey ayuu iska barakaysta meeshuu doonuu la aad ma garanaysaa ma la roob raacay waa la roob raacay baan qabaa anigu waa la roob raacay muuse ka shaqaynin degaankii amni hadday tahay hadday siyaasad tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay anigu degaanka dadka ka shaqeeyey baan ahay in badanna ka shaqeeyey oo nooc walba uga shaqeeyey baan yaan ka mid ahay anigu muuse ka shaqaynin haddeerna ciidamada uu lala ordayahay in la joojiyaan qabaa ra'yigan soo jeedinaya anigu cidna wax ka sheegayn in ciidamadaas maanta la geeyo dhuusamareeb la joojiyo dadkan meel ay ku wada hadli karaan la iskugu yeero ra'iisul wasaaruhuna uu dad u qabto iyo intii waxgarad oo waxgalay cid loo qabto la yiraahdo dadkaas ka soo gaara aragti soo guddi loo bixiyo marka wax dhacaan soo lama yiraahdo guddi baa loo bixiyay ya ama waxaasi ha soo natiijadoodii hala waayo ama hala hele soo guddi lama oran jirin waxaan qabaa dadkaas hala yiraahdo hala isku noqdo hala wada hadal siiyo meel hala iskugu geeyo haddaan saa la yeelin nin walba dafoos uu leeyahay arbiter uu leeyahay calansidayaal buu leeyahay dadkan laftigooda dad baa ka dhex shaqeeya dadku keligood maaha duulal baa saaran galmudug dadka hogaanka u ah iyo ahlu sunna dadka u ah dad baa waxbaa dul saaran waxa dul saaran inay iska dejiyaan oo dhulka inta dhigaan la wada hadlo oo la kala gar qaato oo aan la sheego in la yiraahdo waxaasa cidaasa khaldan ba qaba maasan tahay gunaanadkii barnaamijkan ayaan joognaa ra'iisul wasaaraha iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maxay ahayd kaalinteeda ayaa door mar ku soo celisay marka kaalin noocee ayaa dowladda federaalka Soomaaliya haatan ugu banaan
xalinta khilaafkaasi soo kala dhexgalay dowlad goboleedka galmudug sida ugu nadaafada badan oo ugu dareenka iyo mas-uuliyadda wanaagsan waa inaan wax colaad la yidhahdo lasii wadin wax colaad la yidhaahdo iyo qori waxba laguma keeni karo dhul waa la kala qabsan karaa laakiin lama kala haysan karo soo maha waa taas waa ku qoos qaadanay afghanistan baa imaka adkaysay dowladaha ugu baawarka roonaabay ka dhaqaaqjiyey oo yiri maca salaama oo ku daalay baasha waxa weeye waa lagu daalaya baasha dagaal cid wax ku keenaysa ay qori wax ku keenayaa ma jiraan sidaa daraaddeed dowladdu gogol degdega ha ku dhawaaqdo xukuumadda iyo waxgaradka iyo waxgalka dhammaan ha loo kaco gaar ahaan haddii la leeyahay galmudug dadka madaxda u ah oo baarlamaankoodii uu ku jiro dadka baarlamaanka u ah horta nimankaasi ha hadleen ha yidhahdeen waa aamusan yihiin waxa weeye laba dumar baa waxay isku qabsadeen baa la yidhi ilmo yar markaasaa labadii waxaa la yidhi anaa dhalay haddii gartii la celceliyey waxaa la gartay mid inaysa dhalin midna ay dhashay waxaa la yidhi haye waa idin kala baraynaa waa la kala goynaya ilmaha yarka tii dhashay baa waxay tihi ha kala jarinina sii tii kalena waxay tihi noo kala jar tii tiri noo kala jar baa ilmihii laga qaado tii waxaa tihi yaan la kala jarin baa la siiyey waqtiga nabi sulaymaan ba dhacda alayhi salaam gar weeye gar dadka ma wada qosliso waxaan qabaa qofkii xil hayaahay maanta inuu xilka isa saaro dowladdu xilka inay isa saarto dowladda galmudugna xilka inay isa saarto qoladooda baarlamaanka la yiri way yihiin baarlamaan bay yihiin ba dadka iyaga ahi hadday ceel ku jiraan ka soo baxeen hadday qoyan yihiinna ha gilgisheen baan oran lahaa ugu dambeyntii professor ayaa tahay sidaa sheegtay oday ayaa tahay oo maanta dalka asagoo dalka unbaa u baahanay adiga waa kasii gaboobeysa saa sheegtay marka taladaada ugu dambeysay aada usoo jeedinaysa shacabka galmudug dowlad goboleedka galmudug madaxda ahlu sunna iyo dowladda federaalka soomaaliya adigoo soo koobay waxaan leeyahay gacmo waa maxaa layaa wada shaqayn baa wada jir bay wax ku qabto ku gooyaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan waxba gacan keligeedii wax ma jari karto waxaan qabaa haddii dowladda dhexe ay tahay iyo haddii ay tahay maxaa la yidhaahdaye dowladda galmudug ay tahay iyo muxuu ahayte maamulka ama horseedka ahlu sunna ee deegaankaas hadday tahay waxaan leenahay nabadda ayaa maslaxadii ku jirtaa bal nabaddu waxa weeyaan nicmooyinka ilaahay bixiyo nicmooyinka ugu waaweyn bay ka mid tahay rabbi jacala haadaa baladan aaminan warzuq ahlahu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markuu u ducaynaya maka oo meel deserti ah oo lagu noolaan karin ah ayuu wuxuu yihi rabbi jacala haadaa baladan aaminan ilaahu magaaladan wax ka dhigtaayo magaalo nabadeed ka dhig warzuq ahlahu min athamaraati markaa dabadeedna waxay quutaan si ilaa beera ma hayaan biyana ma hayaan waa lama degaan dhulkii marka waxaan leeyahay nabaddu nicmadaasay leedahay saasay uga horeysaa waxa la cunayo iyo waxa la cabayo iyo xilka la qabanayo waxa ka horeeya nabadda iyo waxa la sheeganayo marka waxaan qabaa nabadda iyo muxuu ahaayete maxaa la amniga iyo sugnaanta iyo istiqraarka in laga shaqeeya laga wada shaqeeya inay muhiim tahay taasina annaga dhan baa u wada baahana iyadu nooma baahna waxaan leeyahay nabadda hala soo celiyo cid walbaaba meesha joogto ha joogto waa gurigiisii qofku qoriga waa la haystaa laakiin qoriga yaa cidna lagu taagin maxaa yeelay qoriga sidiisaba dhib buu kordhiyaa mooyaane dheef ma kordhiyo qorigu anigu gurigayga maanta haddaan 5 qori dhigo waxaan shaki lahayn carruurtayda inay isku dilayaan baa shaki ku jirin meel ay ka soo helaanba waxaan shaki ku jirin qola inta timaado inay yiraahdaan hal qorina siiya meeshaan ku tagaynaa ay dadku soo laayaan marka qorigu wuxuu ahaan jiray qasnadiisana inta la furaa meel lagu xareyn jiray qoriga oo qasnad lahayn meel baa lagu xareyn jiray inta la koogareeyaa la ridi jiray cirka loo ridi jiray xabadi kuma jirto mar labaad baa lagu celin jiray mar saddexaad baa lagu celin jiray marka qorigii qasnada looguna raran yahay asagana ku xiran nidaam iyo maamul ku kala imaan mayaan qoryaha qasnadaha laga jaro dhulka la dhigo taladana hala wada wadaago dadka talada wax kulana waxa laga sii وما صنت بروفيسور عبد الله حرسي الدرشة داعد ومدحوين كرينكي هراء مامورك قبل هذا الدحي برامج كنا قاطع يومات المدفلة كيني حالها كسر قضي دي أنا ذا قلب مدب أنت برامج كنا وقتها كل من دونه وأنا قال محمد كان صلاة وإن سيدا سيدا بتقولي هذا ما صنت بروفيسور ما شاء الله شكرا